السلام عليكم dhalinyaro Ramadaan Kariim waxaan rajeynayaa mar walba joogteen inaad ku caafimaad qabtiin waxaynu rabnaa inaynu isla fiirno jumladatan she has two childs oo iyadu laba canug bay haystaa jumladan saaxiibayaal waa qalad intaanan muuqaalka gudaha u gelin haddii pause aad dhigi kartid deedna yani jawaabta saxda ah comment ku soo qori kartid way wanaagsanaan lahayd haddii aad qaladid aynu markaynu muuqaalka isla galno aad aragtid taada inay qaldaneed waxa ku faa'iiday waxa faa'iidaysa Soomaaliya yes good saaxiibayaal waxaa muhiim ah inaynu fahanno wax la yiraahdo singular iyo plural intaan jumladeena aanan u sii galin singular first plural noun-ka wuxuu leeyahay wax la yiraahdo singular oo mufrad ah iyo plural oo jamac ah mufrad waxa laga wadaa hal wiil hal gabar hal gaari hal guri hal saacad plural waxa laga wadaa wiilal gabdho guriyo saacado Soomaaliya yani waa jamac wixii baa la jamci hal yani labi wixii ka badan bay noqdeen okay so singular iyo plural marka la joogo hadana waxa kale oo sii jiro ku waxa la yiraahdaa regular nouns oo yani markii laga bedelayo singular oo plural loo bedelayo they have a rule sharci bay leeyihiin tusaale intooda badan s baa lagu daraa boy boys girl girls car cars intooda badan es baa lagu daraa watch watches Soomaaliya kuwaas qaaciday leeyihiin waxa la yiraahdaa regular nouns kuwa kale oo waxa jiro aanan qaacido wax la yiraahdo lahayn they don't have a rule arday waxa wanaagsan sidoo inuu ku xifdiyo qoladaas waxa la yiraahdaa irregular nouns aad bay u badan yihiin tusaale hada man kaliya waxa isbedelay aad waxay noqonaysaa man waa nin man waa rag woman baa la mid ah okay hada sheep waa ido qaarkood isma bedelayaan sheep bay ahaan Soomaaliya hada for example person waa mufrad waa hal qof dad markaynu dhahayno people ayaynu leenahay Soomaaliya erey cusub baa meesha ka soo baxa qoladaas marka waxa la yiraahdaa irregular nouns child sidoo kale kamid ah child waa hal canug child caruur markaynu leenahay childs ma dhahayno sida halkaas dhahayno waxaan leenahay children Soomaaliya so kuwan wax qaacida ma laha they don't have a fixed rule instead waxa wanaagsan qofka inuu sidooda ku xifdiyo oo sidooda ku qaato yani cirbada inaad sideeda ku qaadatid yes so markaynu halkan imaana marka waxaynu aragnay child inaynu childs noqonaynin oo s kaliya lagu dareenin ee laga dhigayo children Soomaaliya marka jumlada sida saxda ah waxay ahaan lahayd she gabadha Aamina she iyada